بسم الله أصحابta aad baan idin salaamaya meel walba aad joogtaan sida caadada inoo ahayd today sidoo kale waxaynu sameynay trade inagoo isticmaalina always mar waliba qaacidada candlestick psychology so today trade-ka aan maanta ka sameynay suuqa waxaa weeyaan waa lacagtan aad u jeedaan euro iyo USD so haddaan markaa sharaxo sababta ama reasonka aan suuqan ugu galay asxaabta saa ujeedaan suuqa directionkiisa guud waxa weeyaan waa down train suuqa in badan ayuu hoos usii socdaa asxaabta saa ujeedaan suuqa in badan ayuu hoos usii socdaa so directionkiisa maadaama uu yahay major down train minorkiisana wuxuu yahay waa up train asxaabta minorkiisana waxaa weeyaan waa up train suuqa waxaa kasoo gala halkan bias okay sidoo kale asxaabta halkan waxaa inoo yaala level soo dhaweeyo marka hore aan soo dhaweeyo asxaabta halkan waxaa inoo yaala level halkan mar hore soo ujeedaan trend line horizontal line-kaas mar hore aan dhigtay waxaa inoo yaala halkan level so halkan soo ujeedaan waxaa inoo yaala level okay levelka aan dib u raacno bal in san u ogaano in levelku yahay mid strong iyo ama uu yahay mid daciif ah san u ogaano dib ayaan u laabaynaa okay aan u laabano dib sidan u ogaano haddaba levelkan inuu yahay strong iyo in kale baaraynaa dib ayaan u laabaynaa asxaabta aan fogeyno horta zoom out aan sameyno okay dib aan u baarana soo jeedaan asxaabta soo dhawo halkan soo jeedaan suuqa waa laga celiyay suma asxaabta halkan soo jeedaan suuqa waa laga celiyay waa reversal bias ayaa kasoo galay okay naga mari haddana soo soco asxaabta sidoo kale this is waxaa ujeedaan asxaabta suuqan halkan in badan ba laga celiyay waa reverse bias ayaa kasoo galay this waa bias soo jeedaan asxaabta suuq soo jeedaan halkan in badan ba laga celiyay this waa bias ayaa kasoo galay suuqan halkan bias ayaa kasoo galay halkan bias halkan sidoo kale laga celiyay suuqii okay weli sii soconno aan sii baarno meelo kaloo laga celiyay suuqa aan sii baarno meelo kale haddana suuqa laga celiyay asxaabta okay this is saa ujeedaan asxaabta halkana ujeedaa halkana saa ujeedaan waa laga celiyay so maadaama marka levelkan hadda aynu dhiganay oo dibna haddana u baarnay aan ogaanay in levelku uu yahay level strong oo in badan la celceliyey suuqa laga soo celceliyey maxaa markaa aan go-aansaday suuqa inaan sel u galo sababto aan suuqa sol u galay waxaa weeyaan asxaabta sababtaan suuqa u galay asxaabta waxaa weeyaan saa ujeedaan halkan bias ayaa socday in badan saa ujeedaan halkan bias ayaa socday halkan suuqa bias ayaa kasoo galay sidoo kale bias momentum aa soo socday haddana bias ayaa ku xigay haddana bias ayaa ku xigay haddana bias oo daciif ah ayaa kusii xigay so momentumskan in badan soo socday biaska ah saa ujeedaan candleka u dambeeyey markuu levelka maraya wuxuu noqday daciifnimada candleka buyga noqday iyo meesha oo level ah waxay noo cadeynaysaa in suuqu uu jihadiisa bedelan karo ama at least 1-2 candle oo sell ah ay imaan karaan that's why marka aan suuqi halkan asxaabta sell ugu galay saa ujeedaan halkan suuqi sell ayaan ka galay buy ayuu ila aaday ugu dambeyn wuu ii soo laabtay suuqi wuxuu ku dhamaaday sell soo jeed haddana meesha maadaama level tahay haddana suuqi sell ayaa soo galay soo jeed haddana suuqi sell ayaa soo galay ma garatay so marka asxaabta mar walba levelka inuu strong yahay in gala waa muhiim inaad eegto adiga waliba past history sameynaya oo dib u baaraya asxaabta adigoo
sameynaya waa kanalkan ka faa'iiday asxaabta waa kanalkaas selka ah ee xooga badan oo korna ku leh rejection so mar walba marka asxaabta inaad levelka iska egtaa levelka inuu yahay level adiga iyo in kale adoo dib u baaraya oo past history sameynaya sida u ogaato asxaabta marka aad baan idin salaamaya meel baa joogtaan dhammaantiin waxaan leeyahay horumar wacan nabadiino